معلن aan tababarayn oo aan shahaado wadan oo aan meel la yaqaan ka iman dugsi qur'aan ma dhigi doono hadii la helo xukuumadda dan qaran kamay bilaabin nidaaminta waxbarashada gaar ahaan midda islaamiga ah macadkan kamay bilaabin waxay dejisay siyaasad lagu nidaaminayo waxbarashada islaamiga ah iyo shariicada iyo qaybta ay kaga jirto nolosha laga soo bilaabo dugsiyada quraanka ilaa iyo heer fatwo oo muwaxada oo habaysan siyaasaddaas ay dejisay waxaan dugsiyada quraanka ku darnay oo ay qayb ka yihiin waxbarashada manhajka waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee rasmiga ah oo ay tahay markii ugu horeysay abid ee ay ummadan Soomaaliyeed ay u aqoonsato dugsiga quraanku inuu la mid yahay oo iskuulka oo uu rasmi yahay oo uu manhaj yeelanayo oo uu ishraaf yeelanayo oo uu qiimeyn yeelanayo oo uu shahaado yeelanayo waxaan hoosgeynay wasaaradda waxbarashada si aad ogtihiin dugsiyada quraanku si uun waxay cilaaqo u lahaayeen wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta la oran jiray deedna halkaas ayay iskaga saqiireen waxay heli doonaan oo la mid noqon doonaan sida iskuulada loo dhisay ayaa dugsiyada quraankana loo dhisi doonaa waxaa la geli doonaa budgetka dawladda macallin aan tababarayn oo aan shahaado wadan oo aan meel la yaqaan ka iman dugsi qur'aan ma dhigi doono hadii la helo